waxaan ahay injineer siyaasadeed ma ihi jilaa ma ihi nin masraxiyad jila oo siyaasadeed oo been ah ma ihi markaan talooyin badan rogrogay shacabka la tashtay soomaali meel kastoo ay joogto la tashtay hadday ahaan lahayd culimada hadday ahaan lahayd aqoon-yahanadii haweenka dhallinyaradii dhammaan markaan la tashtay waxaa ii soo baxday in dalkan uu u baahan yahay qof daacad ah iimaan leh oo nadiif ah oo xilliga adag ka saaro soomaaliya xilli adag ku jirtaa saa darteed waxaan istusay in ay tahay xilligii soomaaliya loo baahnaa in aan waxa soomaaliya ragaadiyey waa qofkii 4 sano markii la doorto ka fikiro 4ta ku xigto waxaan xaqiijinayaa 4taas keliya aan xoogga saari doono oon damceygu ah taageera injineerka nabadda injineerka horumarka injineerka soomaali isku geyn kara injineerka dalkan u nixi lahaa oo badbaadin lahaa taageera ayaan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada daawadayaal waxaan nahay cali cumar waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane maxamed xuseen rooble waraysigan waxaad xog badan ka heli doontaan sooyaalka mudanaha ra-iisul wasaaraha soo noqday haddana waa musharax madaxweyne halkuu hiigsanayaa mowqifkiisa siyaasadeed ee dowladda hadda xukunka haysana muxuu yahay aad baan ugu faraxsannahay inaad waraysigan naga ogolaato mudane soo dhawow mahadsan tahay waayahay aan ku bilaawno mudane ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dad badan waxay yaqaanaan isagoo loo magacaabay ra-iisul wasaare 23 Sebtembar 2020 sooyaalkaaga siyaasadeed si kooban maxaad noogu sheegi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore oo ku salaamayaa cali adiga iyo bahda warbaahinta shabeelle iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii maanta farxad ayay tahay cali inaan halkan isku qaabilno haddaan ka hadlo sooyaalkayga taariikheed aniga ah Rooble siday dadku yaqaanaan waa Maxamed Xuseen Rooble oo ku dhashay Hobyo isagoo aad u yarna magaalada Muqdisho yimid waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe sare iyo jaamacaddaba ku dhameeyay magaaladan Muqdisho kadibna markay dagaaladii dhaceen aaday wadamadaas qurbaha bariga loo qeexi jiray kadibna ka soo noqday 2002 magaaladan Muqdisho halkaas aan ka soo qaatay masterkaygii kadibna aan shaqo u soo aaday magaalada Muqdisho halkaas aan shaqadii ugu horeysay oo Soomaaliya aan ka bilaabay 2002 anigoo ah civil engineer oo aan waxyaabo badan oo Soomaalida lagu xasuusto aan halkan ka hirgelinay haddii ahaan lahayd mashaariic xilligaas jaamacadaha sida jaamacadda Muqdisho jaamacadda Siimad iyo jaamacado kale oo fara badan sidoo kale waxaan aad uga qayb qaadanay mashaariicda samafalka ay ugu horeyso mashaariicda biyaha sida ceelasha masaajidada waxbarashada iskuulaadka ilaa gobolada iyo degmooyinka aan ka hirgelinay markaas kadibna maxaa la yiraahdaa waxaan ku biiray xilligii xakiimta ay dalka qabsadeen UN-ka hay'adda yiraahdo International Labour Organization oo UN-ka ah waxaana saldhigeeda ay noqotay Nairobi halkaasoo aan muddo 14 sano ku dhawaad aan ka shaqeynayay runtii shaqadaas 14 sano aan ka shaqeynayay hay'adaas UN-ka oo beeskeedu ah Nairobi waxaan ka shaqeynayay Soomaaliya goboladeeda kala duwan hadday tahay Somaliland Puntland iyo koonfurta oo la isku dhaho Gaalkacyo ilaa Jubbooyinka waxyaabo badan oo mashaariic aad u fara badan oo malaayiin dollar ku kacayaan waan ka hirgelin halka kadibna waxaan ku soo wareegay sanadkii 2020 September 17keeda oo taqaanaa inaan ku soo biiro xukuumadda waagaas uu madaxweyne Farmaajo iyo xusha ra'iisul wasaaraha waad mahadsantahay waa si kooban dad badanna taariikhda ma haynin marka taariikhda ka waramaysay ku dartay inaad civil engineer ahayd siyaasaddaad soo gashay 2020 maxamed xuseen Rooble ma asagaa soo raadsaday siyaasadda raadsatay asaliyan markaan si sax Soomaalidu u fahamsiiyo guri waxaan ka soo jeedaa siyaasi ayaa ka soo jeedaa gurigaas oo ah guri nin wasiir ahaa xilligii Siyaad Barre 70kii ilaa 90kii bilowgeedii ninkii soo kariyay aabahayga labaad Dr. Maxamed Cali Nuur oo Soomaalida aad u taqaana marna ahaa wasiirkii caafimaadka marna ahaa wasiirkii xanaanada xoolaha ayaan ku soo koray oo siyaasadda marna kama marnayn
dad badanoo maanta siyaasadda ordaya isdhexyaacaya waxaan is leeyahay waa kaga horreysay siyaasadda informationkeeda iyo la socodkeeda iyo ka warhaynteeda xilligaas. kadibna markaan noqday aan soomaaliya kusoo noqday wax kastoo howl la qabanayo siyaasad kama maarnayn, siiba maamulka markaas jiray hadday ahaan lahayd midii cabdullaahi yuusuf, midii ka horreysay cabdiqaasin, midii sheekh shariif, dhammaan dadkaasoo dhan kaaba ayaanu ahaa oo xagga infrastructureka ah, xagga shaqooyinkan la yidhaahdo maxaa la dhahaa maamul daadejinta aan kasoo wada qabanay somalilan, puntland iyo koonfurtaba. kulli dhammaan hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta somalilan waa la soo shaqeeyey, siyaasiyiinta puntland aan la soo shaqeeyey, koonfurta oo ama soomaaliya oo dhan markaas oo federaalka ahaana waa la soo wada shaqeeyey. marka maanan ahayn mid ka maran markasta siyaasadda soomaaliya si toosa iyo si dadbanba. marka waxay ka dhigan tahay siyaasadda kusoo doonatay maadaama sooyaalkaaga khalfiga uu ahaa aad ka soo jeeday qoys siyaasadeed, ma sidaas baa? waa sidaas. siyaasadda iyadaa markaasi soo doonatay. dadka siyaasadda waxay ku fiican tahay diiniyeenna in qofka loo raadiyo inuu madax noqdo, hogaamiye noqdo. waxay ku fiican tahay bulshada ama markaas maamulka jiro inuu soo raadiyo, laakiin waxaan is leeyahay iyadaa isoo raadsatay. waayahay aan gudaha usoo galna marka siyaasaddii aa kusoo raadsatay. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu ku magacaabay inaad noqoto ra-iisul wasaaraha dalka. waxaa la xasuustaa xilligaas inuu ahaa xilli adag, doorasho dalka uu gelayay, marxalad adagna dalka uu ku sugnaa oo ismariwaa ah. maxamed xuseen rooble, ra-iisul wasaare, maxaad nooga sheegi kartaa caqabadihii ugu adka ee aad xasuusato ee aad la kulantay taramkii aad ahayd ra-iisul wasaaraha? marka hore waxaan leeyahay horta ilaah ayaa mahadleh oo xilligaas iga dhigay ra-iisul wasaare iyo walaalkay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. runtii fursad weyn ayay ii ahayd inaan dalkan ra-iisul wasaare xilligaas ka soo noqdo, anigana aan isku tijaabiyo siyaasadeyda si practical ah. runtiina arrin waxay ahayd aan fiirin karo waxyaabahaan dalkan ka qaban karo iyadoo waddanku aada u kakiran yahay oo ismariwaa adag uu ka jiro ayaa ra-iisul wasaare lai magacaabay. runtii xilli adag ayay ahayd ismariwaagaas. marka lay magacaabay aniga iyo xukuumaddeydaba waxaan hadafkeena koowaad ahaa sida dalkan looga hirgelin lahaa doorasho heshiis lagu yahay oo loo wada dhan yahay, qeybaha is haysto oo markaas mucaaradka iyo muxaafidka iyo maamul goboleedyada qaarkood is haysteen iyo dowladda dhexena aan u noqdo saldhigii dhexe oo isku keeni lahaa kana gudbin lahaa marxaladaas adag. saa darteed go-aankaas ayaan qaatay iyo inaan hawshaas dhexda u xirto. waana qof kastoo soomaaliya waa garan karaa shaqo aad iyo aad u adag ayay ahayd, laakiin alxamdulilah ilaahay waa igu guuleysiyey. marka bointigas doorashada go-aanka inaad qaadato u ahaa go-aankii kugu adkaa ee xilligaas? waa aad iyo aad go-aan aad u adag u ah. by the way soomaaliya oo dhanna way la socotay oo yar iyo weyn indhaha ayaa lagu hayay. marka alxamdulilah shacabka soomaaliyeed iyo ilaahay subxaana watacaala ugu mahad celinaya garab istaaggoodii oo xilligaas iyo ilaahay oo naga gudbiyey. maxaad ka cararaysay markaa? maxaad go-aanka u qaadatay doorasho inaad aadaan xilli madaxweynihii dalka hogaaminaya uu yidhi waxaan u baahannahay wakti kale iyo doorasho kale, adigana xukuumaddaad hogaaminaysay? go-aankii kugu adkaana inuu ahaa waad noo sheegtay, maxaa ku riixayay? runtii dalkan wuxuu leeyahay nidaam sharciyeysan oo dastuurkii 2012 ah. dalkan wuxuu lahaa markaan imaanayay September 17 20 oo lagu heshiiyey habraacii doorashooyinka. saa darteed aniga waxyaabaha igu kalifayay inaan raaco waxay ahayd inaan dalka caqabadaas ka bixiyo oo aan si saxa hawshaas u qabto, dalkana ka saaro godkii uu ku dhici lahaa xilligaas. marka saa darteed waxaa waajib igu ahaa inaan anigii xukuumaddayda aan dhexda u xirano sidii doorashadaas loo qaban lahaa, oonan wax dan ah oo gaar ah aan ka raadin xilligaas. waayahay waxaad hadda bilowgii u mahad celisay madaxweynihii kusoo magacaabay maxamed cabdulaahi farmaajo. xilligii hore waxaa la xasuustaa aad baad iskula jaan qaadeen, siyaasaddiina waad isla socoteen, dhaliilo fara badanna mucaaradka way ku jeedinayeen in go-aan aadan lahayn. qaybtii dambe go-aan baad qaadatay sidaa hadda ka dhawaajisayba, oo marxaladana ay aad u adkayd. waad kala tagteen maxamed cabdulaahi farmaajo, xaaladana waa sii cakirantay, sababtay in warqad lasoo saaro madaxweynihii uu yidhahdo waxaan shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaarihii. xafiiskaaga ciidan baa lagu weeraray, waa la hareerayay, waa lagu diiday inaad gasho. mudane maxamed xuseen rooble, maxaad isku qabateen madaxweynihii kusoo magacaabay? marka hore waad mahadsan tahay. soomaaliya waad garan kartaa markii meel lagu magacaabo dadka siyaasiyiinta ah oo markaas rabay inuu isbeddel dhaco oo xilligii la magacaabay, dadkii waad garan kartaa eedeyn badana naloo soo jeediyey. aniga madaxweynihii magacaabay anigoo la fariisan
xaaladda dalka heshiis la gaarin si meesha u socota aanu isku fahmin madaxweynihii lama dagaali kartid oo kama hor imaan kartid waa ina madaxweynaha adeecda waana uga hayaa abaalkaas waanay dhegaystay xilliga hore laakiin markii muddo la joogay oo howlihii ay soo bateen oo soo karkareen ayaan aniga hadafkayga wuxuu ahaa in dalkan aan doorasho geliyo saa darteed madaxweynaha iyo aniga iyo tiimkiisiba waxyaabahan isaga hor imaana waxay ahayd habraacii doorashada iyo nidaamkii loo marayay iyo maxaa la yidhahdaa in dalkan laga dhaafo danta gaarka oo markaas dad qaasa ay lahaayeen in la joojiyo laakiin aniga waxaan go-aansaday markaas in aan doorashada qabto oo dantayda iyo danta dadka kaleba aan ka hormariyo dantii doorashada iyo dadka soomaaliyeed ay sugayeen sidaa darteed ayaa waxaa keenay in dadka qaarkood ay iska dhex waayaan danahoodii xilligaas oo dagaallo ay ugu bilowdeen dad dowladda ka tirsan iyo dad bannaanka joogaba ay dhaheen maxaa la yidhaahdaa arrintan nooma cuntunto aan muddo kusoo halgamayna anigana hadafkayga wuxuu ahaa in doorasho hufan ee dalkan ka dhacdo oo muxaafid iyo mucaarad iyo maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyada maqan dhammaantood ay miis soo wada fadhiistaan heshiiskii qornaana dib loogu noqdo oo la gaaro maxaa la yidhaahdaa sidii daafurnaan doorashadaas ay u dhici lahayd anigana halkaas ayaan ku adkaystay adkaysigaas ayaa marka wuxuu keenay in aan u dhaga nuglaan waayo qoladii qofkii qaldan iyo qofkii diidanba doorashadaas saas ayaana keentay in oo xaafadayda ama gurigeyga xilligaas lasoo weeraro oo ay ragga qaarkood istuseen inay xilligaas i bedelaan si ay extensionkoodii ama xilligaas waxyaabaha ay rabeen ay ugu suurto gasho laakiin hal adeega iyo aniga go-aankaa lahaa anigii xukuumadeyda ayaa waxay keentay inay doorashadaas hirgasho runtiina shacabka soomaaliyeed dhammaan mucaafid iyo mucaarad waa igu garab istaageen iyo dhammaan maamul goboleedyada saas ayaana keentay inay doorashadaas alla subxaana watacaala uu ii fududeeyo xilligaas dana qaas bay lahaayeen shakhsiyaad qaas ah maxaad kala jeedaa mudane waxaan kala jeedaa waad garan kartaa markii xukuumadda ay waddan timaado markasta waxay isku daydaa danteeda gaarka ah dadka xukunkaas hogaaminayo inay ka hormariyaan dantooda gaarka ay ka hormariyaan dantii caamka ah marka waxaa kaloo idana keenayo in xukunkaas la isku dayayo markasta xukuumadda timaadaba inay xukunka boobto awoodda maroorsato oo ay maxaa la yidhaahdaa dadka kale oo siyaasiyiinta ah ama stakeholderka aysan waxba u ogolaan saa darteed ayaa waxaa keentay inay dadkaas ay iyaga isku cabiraan kursiga taasna ay dhib ku noqotay maxaa la dhahaa hanaan socodkii geediga nabadda soomaaliya laakiin mudane madaxweynihii isagaa kusoo magacaabay kalsoonidii ku siiyey miyaynan ahayn isaga rabitaankiisa siyaasadeed iyo ajandihiisa dowladda u ku wada inaad qaadato miyaynan ahayn madaxweynaha waa madaxweynahaygii waana saaxiibkay xaqiiqdii waxa uu iisoo magacaabay waa inaan ummadda soomaaliyeed wax u qabto shaqo u qabto doorashadaas xilligaas oo ay ka mid tahay shaqooyinka liya idmaday shaqooyin maalmeedka ka soka marka laga soo tago shaqooyinka liya idmay oo ahaa in doorasho aan dalkan ka qabto ayuu ii idmay marka saa darteed maxaa la yidhaahdaa wixii ummaddaas iga sugaysay haddii laisku dayo in layga hor istaago ama la weeciyo aniga uma arkayn maxaa la dhahaa inaan raaco wax waddo qaldan oo waddankan ku dumaayo runtiina maanta waxaan aaminsan haddii la waraysto inuu aaminsan yahay in xilligaas aan wada badbaadnay dhammaanteen dalkana uu u baahnaa xilligaas in dalka laga badbaadiyo xukunka iyo awood maroorsiga xilligaas laakiin dagaal baa dhacay dad baa dhintay weeraro culus baa madaxtooyadii soo weeraray badbaadada uu ra-iisul wasaare rooble ka hadlaya maxay tahay waa lis weydiin badbaadadan ka hadlayo waxa weeye haddii waddanka xilligaas faraha uu ka bixi lahaa oo xabadahaas dhacay ay maalin ama 2 maalin ku darsan lahayd waddanka maanta aniga adiga maanta halkaan ma fadhineen marka ujeedkayga waxaa waan u leeyahay badbaado waxaan ka wadaa in xilligaas go-aankii aan kaga noqday maxaa la dhahaa ku darsashada ama extensionka xilligaas oo dhibaatada noo keenay ay mucaaradkiina ay gadoodeen ay qoryo qaateen waad la socotaa 1991 ay ku dhawaaqayeen inaan ka hor imid iyadana tii madaxweynahana aan dhahay madaxweyne sug waxaan soomaaliya uma qalanta dastuurkan ma dhigayo sidaas dastuurkan wuxuu dhigayaa in ciddii timaadaba 40 sano ay si sharaf leh ku dhammaysato kadibna waddanka doorasho la aadiyo saas ayaan lagu kala badbaaday marka dagaal lagu hortay ma dhicin alxamdulilah waa ku badbaadnay xilligaas soomaaliyana markhaati ay ka tahay inaan maxaa la yidhahdaa joojinay qoryihii laisku qaatay miranaayo hadday tahay number 4 hadday tahay maxaa la dhahaa tarabuunka maxaa la dhahaa waa joojinay ciiddiyaa la qaaday xilligaas haddaa la socotid dalka waxaan ku soo celinay dhabbihii doorashada xilligaas waana ku badbaadnay dhammaanteen go-aankii adiga aad qaadatona ka dhashay
aniga iyo keligay ma qaadanani, aniga iyo asxaabtayda oo iyo golahayga wasiirada iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan oo qalbiga ugu haysta. adaa hoggaan u haya marka waad mahadsan tahay. Doorashadiyaa la galay, waxaan xasuusanaa in ra-iisul wasaarayaashii soo maray dalka 60 ilaa hadda ay ahaayeen xilliga doorashada markii la gaaro inay isa soo sharaxaan maadaama fursadda ay gacanta ku haysteen. sidaad hadda sheegtayna doorashadii adaa la wareegay, madaxweynihiina adaa kala wareegay, xukuumaddaadaad garwadeen u ahayd. maxamed xuseen rooblaan isma soo sharaxin, fursad weynna waa haystay. maxaa kuu diiday inaad isa soo sharaxdo oo aad qayb ka qaadato ama qayb aad ka noqoto musharaxiintii u tartamaya kursiga? su-aashaas haddaan jawaabteeda inaan ka hormariyo ayaan jeclahay. dhammaan horta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markaan la kulmo waxay leeyihiin fursaddii ku soo martay maxaad waagaas isku sharxi weysay. xilligii waagaas markaan joogayna dadka dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibtaba waxay dhahayeen fursad ayaa haysta aad isku sharixi kartid maantay, haliyey Soomaaliyeed ayaa tahay oo dalkan badbaadiyey, shacabka Soomaaliyeed diyaar waaye, waa inaad sharaxda. waa la ii soo jeediyey, laakiin xaqiiqda markaan kuu sheego waxaa miisaan wada saaray dantayda gaarka ah ee dalka iyo danta caamka ah ee Soomaaliya. waxaan cabiray haddii aan isku jimeeyo kursigaas in dalka uu hadaan kale kasii dhici doono. marka sidaa darteed waa u istiqaaraystay. Soomaalida istiqaarada inaan fahamsiiyaan rabaa faa'iidada leedahay. waxaan go'aansaday in aan shacabka Soomaaliyeed u naxo, dantayda gaarkaana aan meel dhigo, xilli kalena aan ka dhigto hadduu alla idmo. xilligana maanta ayaa la joogaa. sidaa darteed waxaan leeyahay xilligaas waxaan u tanaasulay shacabka Soomaaliyeed oo ah inaan hawsha ay ii dhibteen aan si sax ugu fuliyo. maxaa la yidhaahdaa, hawshaas ay ii dhiibteenna aniga iskuma cabirinaya, waa u ogolaaday shacabka Soomaaliyeed inaan u tanaasulo oo dantooda aan ka shaqeeyo. doorasho cadaalad ah oo hufan oo Soomaali wada sugaysay oo mucaarad iyo muxaafid iyo maamul goboleed ay wada sugayeenna waa u qabtay oo aniga ka madax bannaanahay. laakiin doorashada waxaa garwadeen ka ahaa guddi doorasho, madaxweynahana waxaa dooranaya waxay ahaayeen xildhibaano oo ay soo saarteen mucaarad ama garbo kala duwan. marka inaad isa sharaxdo waxa diidaya maxay ahayd maadaama ay doorashada guddi qabanayeen markaana go-aanka ay lahaayeen xildhibaanadii lasoo doortay? maadaama aniga sidaan hore kugu sheegay aan ahaa mas-uulkii doorashada ka mas-uulka ah markii laga soo tago guddiyada, qofka ka mas-uulka ah oo anigu ahaa, si ay hawsha u noqoto hawl hirgasho ayaan u go'aansaday in aan maxaa la yidhaahdaa cadkaas waagaas waa sheegi jiray cadkaa yar inaan waxba ka raadin, kursigaas inaanan wakhtigaas waxba ka raadin oo aan Soomaalida u tanaasulo, wakhtigeedana aan la sugo oo ah maanta. marka waxaan is leeyahay xilligaas waa la sugtay. Soomaali ayaa ugu danaysay. maxaa la yidhaahdaa wax weyn ayaan Soomaali u qabtay sababtoo ah waa kuu sheegay waan awooday xilligaas. Soomaali ajnabina diyaar bay ii ahaayeen haddaan is sharaxi lahaa, laakiin dantayda gaarka ayaan waxaan ka biday danta guud ee shacbiga. marka miisaanaan wada saaray, sidaa darteed ayaan u go'aansaday in maxaa la yidhaahdaa aan u tanaasulo shacabka Soomaaliyeed, anigana aan hawsha si fiican aan u guto. haddaan laakiin aniga is sharaxi lahaa hawshaas si fiican uma dhacdeen. aad baad u mahadsan tahay mudane. intaas kadib haddaan qaybaha hore intaa kaga soo baxno, waxaa la soo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. dhowaanahana waxaa muuqanaysay inaad dhaliil xooggan u jeedinayso hoggaanka madaxweyne xasan. gadaal aan u laabtay waxaa lagugu tirinayay madaxweyne xasan garbihii la duulayay ama garab siiyey in siyaasadda uu ku soo baxo, taageerana qayb ka mid a taageeradaadana uu ku soo baxay. xaggeed ku kala leexateen madaxweyne xasan, maxaad isku qabateen? waa run, madaxweyne xasan waa saaxiibkay u ahaa. maxaa la yidhaahdaa inaan garab istaago xilligaas aan isdhahayay waa qofka ugu roon oo maxaa la yidhaahdaa hawsha aad adiga soo dhammaystiro doorashada aan qabtay dalkan sii wadi karo, daadihin karo, godka ka sii saari kara ayaan u arkayay xilligaas. qofka ugu habboonna waan u arkayay. taas way jirtaa, waana sax. laakiin markii dambe waxaa bilowday in maxaa la yidhaahdaa dalka uu waddo qalloocan raaco. waddadaas qalloocan oo ugu horeyso maxaa la yidhaahdaa saansaan isku jimayn ama awood boobid, xukun boobid, awooddii oo la boobayo iyo maxaa la yidhaahdaa isku keliyeyn iyo inuusan dadka la tashan ayaa waxay dhacday inaan dhowr jeer tala siiyey oo si qoto dheerna aan ula taliyey. hase ahatee madaxweynaha iyo tiimkiisaba way qaadan waayeen talooyinkaasna waxay ahaayeen in waddankan waa qor isku dhiib,
waa samata bixin, waa maxaa la yidhaha dadka in la isku haayo, dadka soomaali la isku keeno, soomaali la heshiisiiyo, waxyaabihii heshiisku la ahaa lagu dhaqmo, waxaasoo dhan talooyin ayaan ka siiyey. laakiin markii talooyinkii lagaa diido oo aad ninkaasi dhehaysay saaxiibka tala sii dalkan si uu badbaado horan ugu sii socdo, dowladdan tabarta yar aan haysanno ay diideen, ayaa waxaan go'aansaday inaan kor u hadlo, shacabka soomaaliyeedna u sheego mowqifka aan ka taaganahay, waxa soomaaliya madaxweynaha iyo tiimkiisa ay ka wadaan oo ah waddadaas qalloocan ee dalka keeni karta inuu god mar labaad kusii dhaco. waddada qalloocan iyo tallaabooyinka aad kaga digtay iyo talooyinka aad siisay maxay ahaayeen? waddooyinkaas waxay ahaayeen kow in dastuurkii 2012 ay soomaali ku heshiisay. shacabka soomaaliyeed waa taqaanaa nidaam yar oo 22,000 ayaa lagu heshiiyey, dastuurkaasoo weli qabyo ahaa oon la dhammaystirin, oo u baahan in cod loo qaado mustaqbalka markii ay soo dhammaystireen guddiyadii loogu talagalay, inuu ka leexday oo dastuurkii wax ka bedelay, oo dastuurkii aan isla ogeyn oo qaybuhu ka bedelayn ay yihiin qaybaha siyaasadda ee quseeyo kursigiisa. waa number 1. waxyaabaha oo kale aan isku qabanay waxaa ka mid ah ilaalinta hantida qaranka oo aad maanta og u tahay meesha ay marayso. waxyaabaha kale aan isku qabanay waxaa ka mid ah la dagaalanka shabaab oo ay ahayd in si toos ah oo aragti guud oo ummadda soomaaliya intii la isugu yeero, hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo mucaaradkii la isugu yeero, dagaalkaas si saxa loo abbaaro, loo wada tashto, go-aan loo wada qaato, oo maanta aad og tahay meesha uu taagan yahay uu ku dambeeyo. iyo dhammaan waxyaabihii soomaalida isku hayoo dhan ayuu ka beeray. talooyinkaas waa talooyinkii uu madaxweynaha naga diiday, marka waa talooyinkaan ku kala tagnay. waayahay wadahadallo dheeraad madaxweynaha yeelateen waana idin yeeray si guuduuna madaxweyne xasan wuxuu ugu baaqay in wadahadallo ula furayo, aragtida siyaasiyiinta mucaaradkana u dhageysanayo. tiro ka dhowr jeer aad waxaad fadhiisateen madaxtooyada oo wadahadal aad gasheen, marka maxaad isku diideen? haddana waa kuu sheegay horena shacabka soomaaliyeed life ayaan ugu sheegay, waana kuugu celinaya walaalkay cali. soomaaliya waxay ku heshiisay ay ku heshiis tahay 2012 dastuur la yidhaahdo oo soomaali u yaallay. maamul goboleed yaa maqan, somalilan waa maqan tahay, puntland waa maqan tahay, jubbaland waa maqan tahay. mucaaradkii oo muraayadan 2012 dastuurka la iska dhex arkayay, haddii madaxweynuhu uu intuu qol la galo mugdi ah oo tiim u yeerto u dhaho qodob hebel iyo jabtar hebel ha laygaaga bixiyo oo kursigiisa ku saabsan iyo xisbiyo aanan waqtigooda la gaarin ku saabsan dhaho ha lii badbedelo aniga ha liigu cabiro, waad garan kartaa waxa ay maanta keenayaan iyo waxa aan maanta ku soconno. calaamadaha maanta socdana waa arkaysaa. marka waxyaabahaas ayaan isku qabannay. haddana waxaan leeyahay haddii qof kastoo soomaaliya uu daawanayo in talada dhexda lasoo dhigo, awooddan lala ordayo sadbursiga ahna meel layska dhigo, danta gaarka ah oo qofka soomaaliyeed oo markuu kursiga yimaado uu markasta ka fikirayo uu ka doorbido danta guud. dalkan waa naga wada badan yahay. qof horena waa u sheegay qof la carari karo dalkan ma lahan, qof mugdi la geli karo ma lahan. waxaan leeyahay talada dhexda soo dhig, ha laga taliyo 2012 dastuur la yidhaahdaa noo yaallo oo naga wada dhexay dhammaanteen aan ku heshiisnahay. haddii wax laga bedelayna iyadoo heshiis lagu yahay gobollada la aadaa. qodob markii wax laga bedelayo waa in dhammaan gobollada la wada aadaa, lagala soo tashtaa wasaaradahooda, shacabka gobolladaas hadday tahay 5 dowlad goboleed ee soomaaliya hal waa in loogu tagaa, lasoo wada qanciya. marka waxaan leeyahay madaxweynaha waa saaxiibkay saa sheegtay, hore ku soo noqo madaxweyne, miiska wada hadalka ku soo noqo, ogolow soomaaliya qaraha ka tuuri. maanta xaaladda dalka meesha ay marayso waa midaas. midda labaad waxaa waaye ilaalinta hantida qaranka. dalkan walaalkayow soomaalida iska leh, midka halkan ku dhasho, midka qurbaha ku dhasho, midka miyiga ku dhasho, dhammaan waa wada leenahay. waa in hantidaas loo xafidaa. haddaana loo xafidin dhibkay keenaysa waa taqaanaa. marka iyadana waa arrimaha taagnaa oo hantidaas ah. waad mahadsan tahay mudane. madaxweynaha waa hadlay marka wada fadhigiina dhowr jeer uu fashilmay. wuxuu yidhi siyaasiyiinta mucaaradka ee bannaanka jooga ayay tahay cidda ay wax ka socon laayihiin, go-aan midaysanna iyaga laftirkooda ma laha. dastuurka hadda aad ka dhawaajisay mudane waa midda musharaxiintii dhowrka ahaa isa soo sharaxay madaxweyne xasan uu ku jira ay ballan qaadeen in la dhammaystiri doono. marka siyaasiyiintiina mucaaradka ee mudane maxamed xuseen rooble uu ka mid yahay ayaa diidan dastuurka dalka in uu dhammaystirmo, ayaa diidan dalka doorasho
qof iyo cod ah inay ka dhacdo idinka caqabada miyaadan isku arkin sida madaxweynaha u sheegay walaalkay mar labaad si fiican ii dhegayso waa saxan tahay shacabka soomaaliyeed waa u sheegayaa meelan ku diidannahay dastuurka in laga shaqeeyo oo la dhammaystiro diyaaraan u nahay dastuurkiyaa dhammaystira waayo dadka ummadda soomaaliyeed yaanan latrik ama maaweelo beenayo loo shidin dastuurka waxaa dhammaystira dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadday yihiin dhammaan maamul goboleedyada dadka ku nool mucaaradka muxaafidka dhammaan waa in laga soo wada qaybgeliyaa laakiin dastuur koox gooniha intay qol la gashay wax ka soo bedeshay madaxweynahana saxiix ku soo saaro dastuurkaas maahan dastuur la dhammaystira waa in maamul goboleedyada sida somalilan sooma maqna maanta xaq bay u leedahay dastuurkaas inay qayb ku lahaato ay wax ka ogaato waxa kuu soo haray qof iyo cod kelimad waxaa jirta oo xaq ah laakiin baadil loola jeedo waxaan leeyahay soomaaliya iyo caalamka iyo muslim iyo annaga iyo dhammaan waxa anfacayo waa qofka codkiisa inuu kusoo baxo oo qof iyo cod ay noqoto ma diidani laakiin wadda ayay leedahay tusaale ayar ayaan ku siinayaa xisbiga roble waa inuu ka tartamaa hargeysa xisbiga roble waa inuu kismaayo ka tartamaa xisbiga roble waa inuu baydhabo ka tartamaa waa inuu boosaaso ka tartamaa waa inuu gaalkacyo ka tartamaa waa in asxaabtii nidaam iyo waxay leeyihiin habraacyo lagu soo saaro in loo maro hal xisbi oo xisbulxaafida intay qol isugu tageen ismagacaabeen inay dadkiina xoog lagu aruuriyo teeda kale adiga haddaad maantay maxaa la yidhaahdaa aad maxaa la yidhaahdaa isdiiwaan gelisa is rajis garaysa waxa isku rajis garaysa adi xataa ma taqaanid xisbi isku rajis garaysa ma taqaanid waatan maantay 900 iyo dhowr iyo 20,000 ayaa is rajis garaysaa la leeyahay 13 aan lahayaa waa 1.4% 2% xataa ma dhamo dadki qaatay kaarka xisbi haddii la rabo in waa la yaqaanaa nidaamka loo maro dad walaalaheena oo hore u isticmaalay ayaa jiro somalilan soomaaliya soo ka mid ah soo dad walaalaheena maahan khibradii u leeyihiin maan u yeerano maan u tagno maan la tashano maan dhahno walaalayaalow kaaleyna saacida wanvoodaan rabnaaye sidii aan ku gaadheen laakiin qol yar intii laisku soo xiro xukunkaa marorsanaya iyo waa sii joogaya iyo extension ka dhex raadinaya iyo wax madaxweynaha uu wado iyo tiimkiisa waa gacmad daalis marka runta ku sheego waaya mudane waxaa nagu maqaalo ah in qodobada hadda aad sheegtay inaad madaxweynaha ku kala tagteen oo taladaada inuu dhegeysan waayo qayb ka tahay in ballanqaad aad wada gasheen isaga iyo adiga ma jirtaa ballanqaadka markuu kaaga baxayna aad siyaasadiis ka soo horjeesatay horta waxbaan kuu sheegayaa dalkan soomaaliya iska leh laba hab ayaa mustaqbalka rabnaa inaan wax ku doorano haddii one man one vote la galo soomaaliya wax dooranayso haddii teendhada la aado doorasho dadban la aadana 330 aad dooranayso soomaan qof insaan ah oo recommendation dhihi karo hebel hala doorto ama hebelan waxa kula heshiiya ama hebelan wax siina kula heshiin karta ma jirto horta teeda kale xukunka waxaan kuu sheegayaa walaalkayow milkiidii allay u sugnaatay qofkuu rabo siiya qofkuu rabana waa ka siibaa soomaan qofna qof ballanqaad uma qaadi karo kursi horta waxaan rabaa inaan taas ku fahamsiiyo dadka oo fikirkaas qaban aan fahamsiiyo ma jirto waxaas waddankan waa wada leenahay qof kastii calafkiisoona cunayaa ma jirto in madaxweyne xasan aad ku ballanteen 4 sano markuu dhammaystay in uu ku dhisi doono waxaa jirto 4 sano inuu si sharaf leh madaxweynaha kala hadlay 4 sano nidaamkii 4 sano oo qori isku dhiibka ah inuu mar waa ku ballanay waxyaabahu diidayna ka mid tahay waa ka waay aad baad u mahadsan tahay waxaa nagu maqaalo ah in aad tahay musharax madaxweyne arrintaa ma sax baa walaalkayow waad ogeed xilligii aan ra-iisul wasaaraha ahaa inaan u tanaasulay ummadda soomaaliyeed inaan u tanaasulay danta guud danteyda gaarkana meel iska dhigay waxaan leeyahay maantay markaan talooyin badan rogrogay shacabka la tashtay soomaaliya meel kastoo ay joogto la tashtay hadday ahaan lahayd culimada hadday ahaan lahayd aqoon-yahanadii haweenka dhalinyaradii dhammaan markaan la tashtay waxaa ii soo baxday in dalkan uu u baahan yahay qof daacad ah iimaan leh oo nadiif ah oo xilliga adag ka saaro soomaaliya xilli adag ku jirtaa saa darteed waxaan istusay in ay tahay xilligii soomaaliya loo baahnaa in aan u istaago oo aan dhibka hayso soomaaliya aan ka saaro
saa darteed ayaan u go'aansaday musharaxna waan ahay waana diyaarna waan u ahay insha allah waana ka saaraynaa soomaaliya dhibkan ragaadiyey ay ku jirto muddooyinkii u dambeeyey ee 35 sano ah. hadalkaaga waxaa ku jiray aragtiyo ka duwan kuwa hadda dalka lagu maamulo, marka aragtiyadaas ka dhex guuxaya hal iyo laba maxaa ka mid ah? waa sax horta aragtiyadeydoo buuxda xilli ku habboonaa jirto waa insha allah soo sheegi doono oo xilligii markii doorashadu ay af yeelato oo meel la aadayo la yaqaano ayaan soo bandhigi doonaa aaraadeyda iyo fikirkayga iyo ajendaha ra-iisul wasaare Roble ku noqon doono madaxweynaha dalkan. waxaa ragaadiyey kursi la boobayo, xukun la boobayo, ku takrifal awoodda. waxaa ragaadiyey dalkan maxaa la yidhaahdaa in dhaqaalihii dalka dadka masaakiinta ahaa waddan haddaad aragto wuxuu ku dhisan yahay siyaasaddiisa bulshada iyo dhaqaalaha. haddaad u fiirsato siyaasadda maanta maalinta ka dambeysa meel xun ayay kasii dhacaysaa oo waxyaabaha u sabab ahna waxaa waaye in qofkii yimaadaba uu isku jimeeyo kursiga, uu damciisa bilaabo inuu kursiga soo socdo uu ka fikiro. for example madaxweynaha la dooranaya, madaxweynahaas 4 sano la doortay wuxuu isku cabirayaa uu ka shaqaynayaa siduu 4 sano ku xigto wax ku noqon lahaa ee kama shaqaynayo maalintaas wixii la joogo. marka aniga ajendayaasha aan wato waxaa waaye inaan kursigan focuskayga saaro 4 sano oo la ii idmaday oo dastuurka ii idmaday in 4 sano laga shaqeeyo. hadday tahay dhaqaalaha oo aad maanta aragtay meesha ay dhaqaalaha marayso, dhaqaalaha Soomaaliya uu marayo maanta meelaha waa aragtay canshuurta, meel kasta canshuur triple 4-5 meelooda canshuuraha lagu qaadaa. halkii ganacsado waa dhiban yahay. hooyada Soomaaliyeed iyo aabbaha Soomaaliyeed ee degan xaafadaha waa ku dhiban yihiin maxaa la yidhaahdaa noloshooda. waxaana u sabab ah wixii dekeddaas laga soo canshuuro oo iyaga gaaraya inay dhowr iyo canshuurood ay maraan. waad garan kartaa hantida qaranka maanta meesha ay ku dambeyso. waxyaabahaasoo dhan iyo la dagaalanka argagixisado iyadana arrin aad u muhiim ah. waxaa ka mid ah ajendayaashayda oo hordhacaan raba inaan kugu sheego in la helo Soomaali oo mid ah, in la helo shacabka Soomaaliyeed, in la helo maamul goboleedyadii oo mid ah, in la helo maxaa la yidhaahdaa aqoon-yahanadii, siyaasiyiintii, in la helo haweenkii, in la helo dhalinyaradii oy taladii dhammaan lala tashto kuwaasoo naga wada saari kara dhammaan wadajirkeenna la dagaalanka argagixisada. waaya qodobkaada aad soo hadal qaaday ama qodobada sida hordhacaad hadda u sheegtay waxaa ka mid ahaa mudane in aad xoogga saari doonto 4 sano aad joogto. waxaan u qaadanaynaa ama macnaheeda miyay tahay inaadan teeramka ku xiga haddii aad guulaysato teeramkan aad is sharaxaynin? waxyaabaha oo aniga laygu bartay shacabka Soomaaliyeed ay igu barteen waxaa ah ka run sheegidda damciga. markaan xilli ka joogana waa sheegi jira, haddana waa sheegayaa. shacabka Soomaaliyeed hadda waxaan u sheegayaa dabcan waxa Soomaaliya ragaadiyey waa qofkii 4 sano markii la doorto ka fikiro 4ta ku xigto. waxaan xaqiijinayaa 4taas keliya aan xoogga saari doono oon damcaygu ahayn 4 kale ku xigto. arrintaas waa xaqiiqo, waana arrin iga go'an. sababtan kuu leeyahay wax kale ma ahan. haddaan ka fikiro 4ta kale oo aan caddaynin waxay iga qasaysaa 4tii aan ka shaqayn lahaa oo Soomaali aan sugu keyn lahaa oo midnimadeeda aan ka shaqayn lahayn oo kobcinta dhaqaalaha Soomaalida aan ka shaqayn lahayn. waxaasoo dhan ayay iga hortaagaysaa. waa wax hadda dowladaheena haysto ugu dambeeya haddaad gadaal u fiiriso. hoggaanka markuu yimaado bisha ugu horeysa bisha ku xigta markay xafladda u dhammaato wuxuu xoogga saaraa teeramka kale. aniga taas waa ka duwanahay. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ii qaadanin nin berri ka fikiraya. 4taas teeram ayaan rabaa Soomaaliya inaan kaga saaro dhibka Soomaaliya haysto, aan gaarsiiyo heer wanaagsan oo xaqiiq ah ay ku gaari karto caalamka naga tegay meel u dhow ay ku gaari karto ayaan rajaynaya inaan gaarsiiyo hadduu alla idmo. ra-iisul wasaare waa wax fiican. inta hadda aad sheegtayna shacabka Soomaaliyeed waa u baahan yihiin, laakiin siyaasiga markuu bannaanka joogo ajendayaashiisa uu soo bandhigo iyo gudaha markuu galo oo kursiga macaankiisa u arko waa kala duwan tahay. waa saxan tahay 100% kugu raacsanahay, laakiin taariikhda aniga laygama hayo. anigoonan doorasho bilaabin ayaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay kursigan inaan u socon ilaa maalintii ugu dambeysay oo ay doorashada dhacaysay. shacabka Soomaaliyeed
iyo siyaasiyiinta ma rumaysnayn inaanan issharaxayn, laakiin indhahooday ku arkeen soomaan. maanta waxaan leeyahay shacabku ay u kalsoon yihiin, nin iimaan leh oo alla ka cabsi leh oo shacabka soomaaliyed u naxaya ayaan ahay. aniga waxaa iga go-an 4 sano inaan ku shaqeeyo, shacabka soomaaliyeed isku keeno, danta guud aan ka shaqeeyo, danta gaar aan meel aan iska dhigo, layguna xisaabtamin 4 ku xigto. waxaana aaminsanahay haddaan 4 sano ka shaqeeyo shacabkoo jecel inaan ka tegi doono. waaya aad baad u mahadsan tahay. dib waxaan ugu laabanayaa siyaasadda mucaaradkee aad ka mid tahay, samata bixinta gole la yidhaahda aad qayb ka tahay ama xubin ka mid aad tahay. waxa ugu weyn aad samaysaan waa in hoteelka Jazeera aad ku shirtaan oo aad muuqaalo ka soo duubtaan, ku dhaliilaysaan hanaanka dowladda ama hoggaanka dalka jooga waxa uu wado. waxaadna sheegtaan shacabka Soomaaliyeed inaad matashaan oo aad u hadlaysaan gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir. mudane shacabka gobolka Banaadir sida muuqata waa dhiban yihiin, guryihii ay deganaayeen qaybo fara badan oo ka mid ah oo danta guud ahaa waa laga barakiciyey, dhaqaale la'aan xooggan baa jirta. gobolka Banaadir dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxday tahriib bay intooda badan wada aadeen. hadallada aad soo saartaanna dowladda dhaqjal kuma siiso. maxay tahay tallaabada kale aad qaadaysaan haddii warkiina la dhageysan waayay? walaalkay waa runta. horta dowladda hadda joogta mandate ay leedahay. mandate-kana wuxuu ugu eegaya 15 May 2026. annaga ma nihin mucaarad hubaysan oo qoryo sita oo dowladda sanka ka gelinaya xabad ma nihin. annaga waxaan nahay mucaarad asluubaysan oo raba inay shacabkaas dhibanaha ah iyo dalkan dhiban aan u doodno. waa saxan tahay intaa sheegta waaye. shacabka barakicin waa lagu hayaa. shacabka dhaqaalihii meel ba-an ayuu marayaa maantay. sidaa la socoto waddanka dhaqaale ma lahan. canshuurihii waa 4-5 jibaarmeen sidaa la socoto. dhalinyaradii Soomaaliyeed oo ahayd xooggii shacabka Soomaaliyeed maanta badahaasay ku daadanayaan. maxaa la yidhaahdaa waayeelkii caafimaadka waa aragtay, waxbarashadii waad aragtay. wax kasto sidii hore ma ahan. marka annaga waxaan xaqiiqa ah sidaa sheegtay inaan wax tusino, wax sheegno, ku celcelino ilaa dhagaha ay ka galayaan, ilaa dowladda maandeeda haysataa. annagana maxaa la yidhahdaa maandeedkaas wax ka baxsan oo annaga hadda aan ku samayn karno ma lahan, laakiin waqti ay leedahay. ma waxay ka dhigantaa hadalkaagu haddii lana dhagaysan waaye muddaxileedka dowladda oo haray ama 4 sano waxay rabto ha qasto, wixii la rabaa la burburiyo, wax sheegisan ku ekaanayna ma sidaas baa? saan hore kugu sheegay annaga ma nihin mucaarad hubaysan. annaga mucaarad waxaan nahay wax sheegid iyo talo tusaaleyn iyo cambaareyn iyo wax istusid ah. saa darteed waajibaadkana saarana waxay tahay inaan shacabkaas la hadalno, dowladda la hadalno, ugu celcelinno. sababtoo ah dowladdii waa dowladdii waddanka maandeedka haysatay, iyadaa hadda kursiga ku fadhido. marka waa ku qasbannahay inaan hadalno oo kor u hadalno, hoos u hadalno, aan wax u sheegno 24 saac. waad mahadsan tahay. mudane maxamed xuseen Rooble, waxaad sheegtay inaad tahay musharax madaxweyne teeramka soo socda. caqabadaha ugu weyn ee la sheego siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay la yimaadaan waxaa ka mid ah faragelin shisheeye ama wadamada qaar ee adduunka in ay wataan oo ay ka taageerayaan dhaqaale iyo siyaasadba. maxamed xuseen Rooble wadankay taageerayaan? walaalkayow aniga intaanan taas u galin waxaan kuu sheegayaa dalka Soomaaliya waa run 35 sano wuxuu la daalaadhacayay faragelin siyaasadda arrimaha dibadda. ma lihin siyaasad dibadeed oo qoran, ma lihin siyaasad dibadeed oo fadhido, ma lihin maxaa la yidhaahdaa siyaasad arrimaha dibadeed oo dalkan u jaango-on oo heshiis lagu yahay. saad la socoto madaxweyne kasta markuu yimaado tiim ayuu wataa. markuu kursiga ku fadhiisto waddan gooni ahna saaxiibuu leeyahay, waddan kalena waa la dagaalaa. marka aniga waddan gooni iyo watana ma jiro. waxaan rabaa inaan kuu sheego siyaasadayda aniga arrimaha dibadda waxaan rabaa siyaasad fadhido oo heshiis la ah. siyaasaddaas wasaaradda arrimaha dibadda ama siyaasaddeena arrimaha dibadda ayaana rabaa inay noo jaangoyso danta Soomaaliya meesha ay ku jirto oo guud. dan gaar ah ma ahan, dan madaxweyne wata ma ahan, danta guud ee Soomaaliya. ciddii ay dantaas ka dhex aragtana waxaan aaminsanahay inay soo dhaweyso. ciddii ay dana kale ka dhex aragtana ay ka fikirto sidii danaha ka wada faa'iidaysan karaan ay uga heshiiyaan. marka saa darteed waxaan leeyahay
waa in aan helnaa ajendaygana waa ku jirtaa siyaasad dibadeed fadhido oo dalkan u horseedo inuu waddan kasto xiriir la yeelan karo la heshiin karo sababtoo ammaantay waddan madaxweynihii yimaado waddan buu xiriir la leeyahay kii kaloo raacdaynaya kii kale yimaado kii kaloo raacdaynaya aniga qorshahaas ma lihi waddan kastoo caalami ah oo aan wax ka faa'iidi karno haba yaraatee siyaasad dibadeed fadhido oo lagula heshiin karo ayaan aaminsanahay in loo dejiyo ra-iisul wasaare Rooble waddan si gooniya u wata ama dhaqaale iyo siyaasad ka taageeraya ma jiro may aniga all wadamada caalamka oo dhan heshiisaan la wada ahay kulli dan shakhsiyadeed imaaraadka lama ma dhexayso jiro qof dan shakhsiyadeedna ma jiro waa ka aad baad u mahadsan tahay inta aad tilmaamaysay dhaliilaha ama gaabiska dowladda madaxweyne xasan sheekh mudane habeen ka mid ah habeenada waxaad sheegtay in madaxweyne xasan afkiisa uu kaa yidhi usha madaxweynihii igu horreeyey isagoo haysan karuu si sahal ku dhigay aniga ma dhigayo haddii ay dhacdo hadalka madaxweynaha uu ka dhabeeyo maxaad tallaabo qaadaysaa horena soomaaliya waa ugu sheegay kursigaas oo dalka lagu maamulayo oo labaad oo doorashada iyo waddankan ka gudbintiisana mas-uul ayaan hadda kahor ka soo noqday waa kuu sheegayaa cidna waddankan xoog uma haysan karto cidna usha kor uma haysan karto waa fahamta soo maha hal isku dayo qof kasta waqtigaa ka dhacayo waa dhiig baxaya waa dhaqaalo baxaya kuwaa been kuu sheegayo kuwaa kuu sacbatumayo kuwaa ku dhuminayo waddankan cidina ma xoogi karto cidinana lama carari karto qof kastoo soomaali ah waxaan kula talinayaa xukunka qabsado mustaqbalka inuu talada shacabka soomaaliyeed dhulka soo dhigo uuna ogolaado in laga heshiisiyo qof qaadan kara ama qol mugdi ah la geli karo walaalkayba ma jiro qofka isku daya inuu mugdi la galana maanta dhibka taagan waa aragti been baa lagu sheegaya haddaa hogaamiye tahay waa lagaa maxaa la yidhaahdaa lagugu takrifalaya waddo qaldanaa lagu horseedaya dhaqaalaha lagaaga dhammaynaya haddii alla idmo maxaa la yidhaahdaa waxyaabo aanan jirin ajendayaal aan jirin iyo mashaariic aan jirin oo been ah ayaa lagu shidaya marka waxaan leeyahay madaxweynaha walaalow waqti fiicana u haystaa waa saaxiibkii hore soo dhowow talada dhulka dhig isugu yeer dhammaan shacabka soomaaliyeed ha ka tashtaan sida waddankan nabad loogu horseedi lahaa doorasho xor iyo xalaalana ay u dhici lahayd oo heshiis lagu yahay waqtigeedana ku dhacdo intuusan waqtiga ka dhammaan 15 May haddaan usha dhulka madaxweynaha dhigin wax laga heshiisayna soo bixin maxaa dhacaya mudane markaas haddee adi waa garanaysaa wixii markay expire noqdaan waa low and orderka dhumayo waa joogi kariyaa madaxweynaha waa dhihi kariyaa waa sii haysanaya ciidamana haystaayo dadkii ay taageersan oo waxba waa istusi karaa laakiin aqoonsiga legitimacyda meesha ka baxayso annaga sharciyadaas nama ka aqbalayno caalamkana kama aqbalayaan cid soomaalina kama aqbalayso marka waxay ku wanaagsan yihiin intay dhexda yaalaan oo aad awoodda haysato inaad talada dhexda soo dhigtid uu tartamo hadduu mar saddexaad helana waa calafkiisa hadduu waayana haddii qofkii ilaahay u garto ayaa helaya haddii taa ay dhici weyso xasan sheekh waa dagaalamay 2022 badbaado qarana la sameeyey min raaya la tagay qori ma qaadanaysaan wallaahi may aniga nin nabadeedaan ahay horta haddayna waa kuu sheegay haddana waa kuu sheegayaa aniga nabaddaan ka shaqeeyaa waxaan ka shaqeeyaa sida soomaali laisugu keeni lahaa kursi aan aniga hadda xasan raba inaan miranaayo u galo ama qor u qaato shalay anoo haysan karaan tanaasulay marka caqliyadda aan rabaa inaan ku fahamsiiyo shalay anoo joogi karo awooddeeda leh fasilitigeeda leh waxyaabaha ii saamaxayoo dhan igu hareeraysan yihiin oo aan joogi karay soomaan maantay maxaa qori ii geynaya aniga nin nabadeedaan ahay waxaan ka shaqeynaya sida welina waa la talinaya madaxweynaha korna waa ugu sheegaya hoosna waa ugu sheegaya nin nabadeedaan ahay qori iyo wax u dhowna ma la qaadanayo shacabkan dhibaataysan oo jiilaalka hayo oo abaarta hayso oo cunniyaradana haysato uguma darayno qori aan qaadana iyo waxaas mana iga suurtoobaan ninkii qaadi lahaana ma ihi waad mahadsan tahay mudane gabagabadii aan joogaa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo waraysiga anagoo markaa ku mahad celinaya aragtiyo badan baa bulshada isla dhex maraysa xilligii aad ra-iisul wasaaraha ahayd iyo haddoo ay dhici karto markii aad ku dhawaaqday musharaxnimadan in markaa la isweydiiyo ra-iisul wasaare Rooble waxaa la leeyahay waa nin qabow waa nin degan siyaasaddan waxay u baahan tahay qof adag qof go-aan goyn kara qof cad ka dhacsan kara marka ra-iisul wasaaruhu
tusbixiisa yar iyo waxaa u fiican in injineernimadiisa uu ku laabto arrintaa baa wax ka dar horta waa aadan ugu faraxsanaa in la leeyahay waaba nin qabow soomaan horena waa lii dhihi jiray waxaa xumaan leyda in lay dhaho waa nin qallafsan Roble waa nin qallafsan Roble waa nin qar iska tuur haddii lay dhihi lahaa taasaa ka darnaa leeda horta marka waxaan leeyahay aniga qof kasta Soomaali waa ogyahay xilli adagan soo hogaamiyey oo ka soo saaray inay Soomaaliya god ku dhacdo waa garan kartaa nin jilicsan kama soo saari karo nin geesi ah ayaa ka soo saari karo oo dadku isku keeni karo macnaheeda ninka geesiga maaha nin dadka kala diri karo nin maxaa la yiraahdaa dagaal gelin karo ma ahan geesiga waa ninka Soomaaliya u nixi kara ninka geesiga hogaamiyaha waa nin ummadda Soomaaliyeed isku keeni kara u tanaasuli kara u naxaya ayaan geesi horta u aqaanaa aniga waxaan marka shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hadday shaqo timaado shaqada waa ku adkahay meeshaana shaqaa la rabaaye hadal looma baahno jileec looma baahno maxaa la yiraahdaa qabow looma baahno laakiin waxa qabow u baahan waa dadka Soomaaliyeed inaan si miyir leh oo wanaagsan oo caqli gal ah loogu sheego shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay hooyo aabe dhalinyaro dhammaan dadkaas waxay u baahan yihiin qof wax fahamsiin karo qabow oo jilicsan oo si caqli gal ah wax ugu sheegi kara ay Soomaalidu u baahan tahay waa taa tiri engineer waa sax aan kula kaftamay aniga waxaan ahay engineer siyaasadeed ma ihi jilaa ma ihi nin masraxiyad jila oo siyaasadeed oo been ah ma ihi waxaan ahay engineer siyaasadeed engineerkana si lagu yaqaano waa nin ku salaysan qorshe cad oo xisaab leh oo waaqici ah oo xaqiiqda ka shaqeey isla markaana dhidiba adag leh marka waxaan ahay aan kugu soo celiyay nin engineer ah oo aan ka shaqeynin siyaasad been ah oo ku saabsan gabay iyo huuha kama shaqeeyay aniga waxaan ka shaqeeyaa siyaasad ku dhisan engineernimo oo qorshaheeda cad yahay oo xaqiiq ah oo isla xisaabtan leh isla markaasna dhidiba adag ku taagan aad baad u mahadsan tahay mudane waa soo xiraya haddaad wax kale ku dareenin waxaan kaloo kugu darayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay taageera injineerka nabadda injineerka horumarka injineerka Soomaali isku geyn kara injineerka dalkan u nixi lahaa oo badbaadin lahaa taageera ayaan leeyahay waadna mahadsantahay aad baad u mahadsantahay mudane waxa uu ahaa ra-iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Roble haddana sheegay inuu yahay musharax u taagan teeramka soo socda ee dowladda intaas ayaan ku keenayaan u mahad celiyo Mawlid iyo Najiib dhammaanteed isku duuban Cali Cumar